kadib markii 11 bisha May uu dhamaaday imtixaankii ku celiska ahaa ee dawladda ay qaaday inta wixii ka dambeeyay ayna soo bixin natiijada imtixaanka kaasi oo qaatay waqti fara badan barayaasha dalka ku sugayeen siyaasiyiinta qaar ayaa dhalilay imtixaanka dawladda ay qaaday oo aanan wali la shaacin natiijadiisa arintaasi ay ku tilmaameen qaladaad ay galayso wasaaradda waxbarashada ee dalka balse wasiirka xoggaanka wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda Soomaaliya Faisal Umar Guuled oo la hadlay radio kulmiye ayaa shaaca ka qaaday in 20 bishan ayna ku guda jirno ay shaacin doonto wasaaradda waxbarashada natiijada guud imtixaankii ay qaaday imtixaankii waxa lagu soo guuleystay isagoo hal maadada bixin lagu soo guuleystay 10 maadada way soo xirooday si nabad ku soo xirooday imikana waa la saxayaa hadii Ilaahay na gaarsiiyo ugu dambeyn hadii Ilaahay na gaarsiiyo 12 bisha ilaa 20 bisha ayaa la shaacinaya imtixaankii oo hadda way dooyin waxaan ka khafiifinay oo aan sanadka ka khafiifinay shahaadooyinkii labada jeer la gelin jiray ee daladaha iyo tii muxuu ahaa ahaydeen dawladda aw laba shahaado la sameyn jiray laba shahaado ma jirto markan hal shahaado bas baa la gadanayaa taas waxay ku cadeynaysaa in halkaasi ay ardayda loo khafiifiyay arintan ay imaanaysa xilli laba maalin ka hor ay shaacisay Puntland imtixaankii shahaadiga ahaa oo ay qaaday kaas oo ka dambeeyay imtixaankii dawladda ee marka hore fashilmay waana mid lagu bogaadiyay Puntland 5,000 arday oo ay ka qaadeen imtixaanka kaas oo si nabad ah ku soo gabagaboobay laguna shaaciyay natiijadiisa iyadoo aanan dhicin wax qalad ahi